kulanti wacan daawadayaal kusoo dhowaada sheeko la yaab leh oo isla markaana hadda bannaanka u soo baxday in muddo aana la qarinayay. waa sheeko xiise leh isla markaana la yaab leh. waa labada fanaan ee lagu kala magacaabo hani UK iyo cawaale aadan oo la sheegay inay muddo dheer lahaayeen xiriir qarsoodi ah isla markaana ay isku qabeen si hoose, balse daawadayaal intaana u gudagelin sheekadaas oo dhammaystiran, halkani waa Galaangal Media. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe saaro calaamada gambaleelkana ha iska hilmaamin si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhegeysta barnaamijyada aan baahino. aan ku bilaabay labada fanaan ee lagu magacaabo cawaale aadan iyo hani UK ayaa la sheegay inay lahaayeen muddo dhowr sano ah xiriir qarsoodi ah, isla markaana uu dhowaan bannaanka u soo baxay xiriirka labadan fanaan ay inta muddada lahaayeen. sheekada la yaab kale ayaa waxay noqotay in hani UK ay cawaale aadan xiriir lahaayeen in ka badan muddo ku siman 2 sannadood, isla markaana ay si hoose isku qabeen. labadan fanaan ayaa la sheegay in ay si hoose isku qabeen in muddo ah, isla markaana la qarinayay xiriirka ay lahaayeen labada fanaan. ma ahan wax cusub in laba fanaan ay xiriir yeeshaan isla markaana ay isguursan karaan, balse sheekada xiisaha leh ayaa waxay noqotay in cawaale aadan hani UK uu qabay muddo ku siman 2 sannadood laga soo bilaabo sanadkii 2017 ayaa hani UK waxay timid wadankaasi Jarmalka, asagoo cawaale aadan sidoo kale u yimid halkaas show inay ku qabtaan. labadooda ayaa markii halka ay yimaadeen waxay bilaabeen inay yeeshaan xiriir qarsoodi ah, waxayna markii dambe isku guursadeen wadan ka mid ah wadamada Yurub oo aan dhowr mar raadinay in wadankaasi aan ogaano, balse dadka qaar ayaa noo sheegay in labada fanaan ay si qarsoodi ugu kulmeen magaalada Sweden Stockholm oo dhowaan yimid fanaanka lagu magacaabo cawaale aadan, isla markaana uu ka tumay show halka uu ku qabtay. dhanka kale labada fanaan ayaa xiriirkoodu wuxuu ahaaba mid yaraantiisii soo socday, iyadoo fanaanada lagu magacaabo hani UK ay dhowrin xiriir la sameeyay, isla markaana ay dhowr mar sheegtay inay ka baxday fanka, balse cawaale aadan oo ku tashkiiliyay inaysan fanka ka bixin, isla markaana ay tahay xidigaha ugu quruxda badan ama ugu codka macaan fanaaniinta Soomaaliyeed ay hani UK aqbashay inay fankeeda sii wadato. isla markaana waxa ugu dambeeyay show ay hadda ku qabatay wadankaasi Jarmalka oo ka mid ah qaaradda Yurub, isla markaana ay ku nooshahay fanaanadani hadda. dhanka kale cawaale aadan oo aan la sameyn xiriir ayaa sheegay in ay fanaanadani si hoose xiriir u leeyihiin, isla markaana aysan doonayn inay hadda ka hadlaan, balse wararka qaar ayaa sheegaya in labada fanaan ay sanadka cusub dhigan doonaan show, isla markaana ay ku caashaaci doonaan xiriirkooda jacayl iyo sidoo kale inay dhowaan dhigan doonaan aroos loo riyaaqo. waa sida ay noo sheegeen ila ku dhowdhow cawaale aadane. fanaanada hani UK ayaa waxa ay sidoo kale tahay xidigaha ugu caansan fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku nool geyiga Soomaalida ama ku nool wadamadaasi qurbaha, iyadoo fanaanada hani UK ay sidoo kale leedahay haybad u gaara oo isfanka ku wadi karto, ama la leeyahaba waxay fanaanadani leedahay hibo u gaara oo ay fankeeda ku horumarin karto. waa sida ay noo xaqiijiyeen dadka u dhuundoleela fanaaniinta iyo sidoo kale hibada fanka, oo ay noo sheegeen in hani UK ay leedahay talenti ay ku talent gareyn karto fanaaniin badan, isla markaana la leeyahaba waxay masraxa ka reexan kartaa fanaaniin badan oo ay ka mid tahay nimca Afrika iyo nimca dareen iyo sidoo kale farxiyo kabayare, balse fanaanadan ayaa la leeyahay maba ay loodin karto fanaanada kale ee farxiyo kabayare farxiyo fiska aan dhahe oo la leeyahay farxiyo fiska iyo hani UK waxaa inta badan fanka hibadiisu ay u dhan tahay fanaanada lagu magacaabo farxiyo fiske, oo hadda la leeyahay waxaaba loo magacaabi doonaa boqorada codka fanaaniinta Soomaaliyeed ee dumarka ah. arrintaas ayaa waxaa si aad uga soo horjeestay dhanka kale fanaanada reer Somaliland ee lagu magacaabo
qatra silma oo sidoo kale la leeyahaba waxay booska ka cariirsan kartaa hani UK iyo farxiyo fiska oo labadooduba hadda loo caleema saari doono dhawaan sida ay noo xaqiijiyeen inay yihiin hobalada fanka Soomaaliyeed ugu caansan. Dhanka kale labadan fanaan ayaa xiriirkoodu wuxuu soo socday muddo aad u fog, sidoo kalena waxaa laga qarinayay in fanaaninta kale ay ogaadaan isagoo dhanka kale Cawaale Aadan uu yahay nin xaasla ah, sidoo kalena ay xaaskiisu u hayso caruur dhowr ah. Cawaale Aadan ayaa ku nool wadankaasi Canada isla markaana halka ku noolaa in muddo kadib markii uu ka tagay wadanka Djibouti oo ay isqabsadeen madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele oo soo kala dhaxgalay khilaaf aad u xoogan, iyadoo fanaankuna intii waxa ka dambeeyay uu ku noolaa halkaasi. Dhanka kale fanaanka ayaa hadda waxa uu soo wareegi doonaa magaalada Muqdisho, balse xiriirkooda ayaa waxa uu ahaa mid si qarsoodi ah ku socday labadii sano ee la soo dhaafay, balse dhawaan ayaa waxa la filayaa inuu xiriirkani banaanka u soo shaabaho maadaama fanaanada hani UK ay dhawaan sheegtay inay guurso doonto, balse arintaas ayaa dadka Soomaaliyeed si aad isku weydiinayeen. Waxaan ku aragnay baraha bulshada hani UK oo u hambalyeynaysa hadda ka hor fanaanin kale oo isguursadeen, iyadoo dhanka kale fanaanadani xiriirkeeda ay intaasi muddada aqrinaysay, balse Galaan Galbeedya oo isku dayday inay la xiriirto fanaaninta ku sugan magaalada Canada oo sidoo kale ay sheegeen in fanaanka lagu magacaabo Cawaale Aadan uu dhawaan ku casuumay gurigiisa fanaanada hani UK, halkaasna ay ku kulmeen oo uu degan yahay waa dalkaasi Canada balse arinta xiisaha leh ayaa waxa ay noqotay si laba fanaan oo Soomaaliyeed ay in muddo ah u qarinayeen xiriirkooda jacayl oo intaasi soo jiray, balse dadka arrimaha falanqeeya fanaaniinta oo ka mid yahay Cabdi Good ayaa sheegay in labadan fanaaniba ay yihiin laba fanaan oo isku qalma inay isguursadaan, balse waxaa la sugayaa in sanadka cusub labadan fanaani ay dhacdo xaflad ayaga ay ku shaacinayaan arooskooda ay meher ay dhigan doonaan oo waadaxa, maadaama markii hore meherkooda uu ahaa mid qarsoodi ah, balse hadda waxaa la leeyahay waxaa la shaaci doonaa sanadka cusub ee 2020 labada fanaana ay ku soo bandhigi doonaan jacaylka ay isku qabaan. haddii arrintani ay si aad u soo shaabaxda ayaa waxaa la leeyahay Cawaale Aadan wuxuu noqon doonaa fanaankii ugu horeeyay Soomaaliyeed ee laba xaasla isla markaana ku nool wadamadaasi horumaray gaar ahaan wadanka Canada oo ka mid ah Latin America. Farxiyo Kabayare ayaa sidoo kale waxaa la leeyahay waa fanaanada ku raagtay garoobnimada, iyadoo sidoo kale fanaanadaasi aan horay habeen hore u sheegnay inay ku xiran tahay wadanka Mareykanka, balse la leeyahay waxay ka qayb gali doontaa arooska uu dhiga doonaan hani UK iyo Cawaale Aadan, oo haddii ay arrintani suuro gasho oo ay soo dhamaatay. fanaanada Farxiyo Kabayare ayaa markii lagu xirayay wadankaasi Mareykanka waxa ay u socotay inay show ku dhigto wadanka Jarmalka, halkaas oo laga hor istaagay aysan show ku qaban karin, hadda kuna xiran tahay wadanka ay ka soo jeedo oo ay dhalashadiisa haysato oo wadankaasi Mareykanka haddaba daawade barnaamijkeena ayaa waxaan si kala ku eegi doonaa in Cawaale Aadan uu xiriirka uu la lahaa hani UK ee inta muddada soo socday uu ahaa mid qarsoodi ah, sidoo kalena uu ka qarinayay xaaskiisa, waa sida ay noo xaqiijiyeen dadku agdhow ama si aad ula socda Cawaale Aadan arrimihiisa gaarka ah oo waliba la nool asaga, sida ay noo sheegayaan. fanaankan Cawaale Aadan ayaa waxa uu noqon doonaa fanaankii labaad ee si laba xaasla ah ee labada qoysba hal mar wada dhista ama laba xaasla ah. fanaaniinta Soomaaliyeed ayaa looga bartay markii ay guursadaan ama ay guursadaan xaas waxay iska furaan xaasaskooda, sidoo kalena fanaaniinta Soomaaliyeed ee guryahoodu dhisan yihiin ayaa si aad ugu yar bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda. marka loo eego Cawaale Aadan ayaa waxa uu noqonayaa Cawaale fanaanka sida aadka gurigiisa ugu dhisan yahay, isagoo labadiisa xaasna dhaqan doona waa hani UK iyo xaaska kale oo carruurta u dhashay oo aan weli la arag sawirkeeda ama aan la shaacinin. Cawaale Aadan ayaa looga baran inuu banaanka keeno xaasaskiisa iyo orooyinka uu qabo, sidoo kale hani UK ayaa waxa ay dhawaan guursan doontaa Cawaale Aadan, iyadoo sanadka cusubna arrintaasi ay ka dhici doonto wadanka Canada. waxaan isha ku hay doonaa sida arrintan ay u dhacdo iyo sidii ay arrintan u suuro gasho iyo haddii aan ka helno faahfaahin dheeraad ah intaba, balse daawadayaal waxaa arrintani noo xaqiijinaysaa inuu Cawaale Aadan yahay fanaankii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee banaanka keena inuu laba xaas la yahay. ha ku maasantahay daawashadaada, halka aad barnaamijkan kala socotana waa shabakada warbaahinta YouTube aan ku leenahay ee Galangal Media. fadlan haddii aad ku cusub tahay ayna tahay markii kuugu horeysay ee Galangal aad aragto, subscribe saaro haddii aadan horay u saaran calaamada gambaleelkana ha iska hilmaamin si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhageysta barnaamijyada aan baahino iyo xogaheena intaba.
Galaangal Media waxay idiin soo gudbi doontaa barnaamijyo aad ku dhageysan doontaan barta YouTube-ka habeen walba. Halkan ayaadna kala socon doontaa barnaamijyo xiiso leh oo si aad kuu soo jiita isla markaana ku raali geliya. Waxaan sidoo kale awood saari doonaa inaan dadka Soomaaliyeed u soo gudbino barnaamijyo tafaftiran sidoo kalena ku saleysan xog iyo xaqiiq sax ah. Insha Allah Taala waxaana mar walba naga dhageysan kartaan halkan. Fadlan haddii aad mar kale nagu cusub tahay oon ka codsanaynaa inaad subscribe saarto. haddii aadan hore u saarin commentiga iyo share-ta iyo like-ta iyo wixii fikrada aan hoos noogu soo qora. waa ku mahadsantiin daawashadiina iyo sidaad nagu xiran tihiin daawadayaal Galaangal Media.